السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مكتبة إسلامية مانتا waxay idin soo gudbinaysaa darsigii 15 waayo runtii xaqiiqada jirta waxa weeyaan muslimiintu mowqifka siyaasiga marka kan way ku guuleysteen sawaa maka haday galaan iyo hadaanay galin waayo waxa iskaga mid ah haday maka galaanna waxa muuqanaysa cududii muslimiintu inay tahay hatta qurayshtu ugu adkeed inay ka cabsatay oo loo ogolaaday meeshii laga soo eriyay shalayto iyagoo xoogooda watay inay soo galaan oo ka cimraystaan xataa hadii laga celiyo marka kanna waxa cadaanaysa yani muslimiintii koox yar oo meel lagu weerweeray inaanay ahayn maanta iyagoo ciidamadoodii iyo waxoodii wata xataa iyagu guri ka galay inay galaan magaalada Maka markasta mowqif siyaasi oo Carabiya dunida gaadha ay muslimiintu taagan yihiin qurayshina tan waa fahamtay waxaanay u aragtaa inay tahay un iyagoo la duleysanayo hadii maanta sida tan ciidanka muslimiinta ay meesha ku soo galaan markaas waxay yiraahdeen marnaba soo gali maayo nabiga alayhi salaatu wasalaam wuxuu isku dayay laakiin mowqifkiisa inuu in badan sharxo wuxuu kaloo diray baa la yiraahdaa nin la yiraahdo Kharash ibn Umayya oo isna Khuzaa'i si uu ugu sharxo mowqifka muslimiinta sayid quraysh waxaa isku dayday baa la yidhi ninka isaga inay disho laakiin axaabishtu waa ma xabashi waa dad dega nisba ila al-habsh maka agagaarkeeda quraysh xilka wadaaga lahaa ayaa sidii ninkeega la dilay ma yahay la daayo kadib nabiga alayhi salaatu wasalaam wuxuu doonay inuu u diro Umar bin al-Khattab Umar wuxuu sheegtay markaasi Ilaahay rasuulkiisa iyo nimankani quraysh anagu alaad rasmi ah dhaxta Allah hatta nimankii reer banu Aday qoladii ka dhashay hatta reer banu Aday inay ma difaacayaan anigu waxaan xidid nimanka gaal iyo muslimiin ku noqdo wax xidid lahayn waa go'aya cid kale u dir Uthman ibn Affan ayuu markaa nabigu tilmaamay alayhi salaatu wasalaam inuu diro oo isagu uu wargeeyo Uthman ibn Affan markii la diray dhexda waxa iska heleen Aban ibn Sa'id ibn al-Aas ninkaas baa markaa magangeliye siiyay ilaa Quraysh warka ka gaarsiiyo Quraysh waxay kala u ogolaatay inuu tawaafo Uthman Uthman uu diiday oo wuxuu yidhi anigu tawaaf maayo nabi maxamed oo tawaafin alayhi salaatu wasalaam wuxuu baan tawaafi karaa hadii la ogolaado in nabigu alayhi salaatu wasalaam soo galo tawaafo nabiga hortii anigu marnaba tawaafi maayo quraysh markaa Uthman dib bay u dhigtay shay'aad ama warar baa soo baxay sheegayaba in Uthman la dilay nabigu alayhi salaatu wasalaam saxaabadiisii buu isugu yeedhay markaas isagoo bay'a heshiis la galaya geed baa la yidhi samura geed quraca hoosteed ayuu nabigu alayhi salaatu wasalaam saxaabadiisii heshiis kula galay uu kula baayactamay ala al-maut maanta inaan noqonin inuu geeriyoona mooyaan riwaayaadka qaarkoodna waxay sheegayaan ala la yafru wuxuu ahdi kula galay nin kasto saxaabada kamida inaan la cararin yani mawtiye inaan la cararin waa salaamkii waxa la yiraahdaa 1400 nin nabiga alayhi salaatu wasalaam bay heshiis la galay واحد من المنافقين منافق عان وين ولا يقان الجد بن قيس نكي لو رجري سيده صحيح مثل قلت المام يعني كان قصص بدن له او قصص كان نفاق خصوصا وان كان يدعى سبب في كسو دكتي الا في الفتنه سقطوا وان جهنم لمحيطه بالكافرين ايات كاسين كلا داوي كسو دغين markii romanski xaga la qabanay intuu nabiga u yimid aniga hablaha cad hadaan ka dibana kala gaarayse hayaan lay fidmeynina xagaaba qolada ayaan lay kaxaynaa aayadka quraanka soo degayeen ala kulli hal al-Jad ibn Qays waxa la yiraahdaa maalinta hal gorof laga keeyo isku gudbaa la yiri isagu heshiiskaasi nabiga lama galin alayhi salaatu wasalaam kale waxa saxiix ah inaanu heshiiskaasi nabiga la galin saxiix riwaayad saxiix ku soo aroortay qolada taariikhiyahanaduna waxa ku sii tilmaamaan meelahaas inuu ku dhuntay saxaabadii bay'ada markuu nabigu yiri heshiiska ayaa ila galaya وعلى سنان بن عبد الله بن وهب الأسدي أيه وهريو النبي عليه الصلاة والسلام في شيء كاسل قالي ويتنا صحابة ورمي بيع على صلة قالي ومالت النبي يقول أنتم خير أهل الأرض تتكبروك كرصارا
idinka u khayr badan buu nabigu kula alayhi salaatu wasalaam laa yadkhulu naara in sha allah min asxaabi shajara axad min aladiina baayacu taxtaha in sha allahu qofna naarta ka geli maayuu nabigu ku lahaa nin maanta halkan heshiis igula galay waa kuwa ilaahayba subxaana watacaala uu qur-aanka kaga waramayo baycatu ridwan nabiga la gelaya calayhi salaatu wasalaam markii ugu dambaysayna nabigu intuu labadiisa gacmood isagoo isku dhuftay isagoo geedkii hoos fadhiya ayuu yidhi wahadihi licuثmaan taasna cusmaanka maqan anaa u qaaday buu nabigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam markii baycatu ridwan la galay in yar kadib bana quraysh cabaarun bay yara haysoo yara xabsiday cusmaane way soo daayeen dabeetana iyadoo muslimiintii dagaal ay u diyaar garoobeen ayuu yimi haddana cusmaanoo soconayo waan la dilin shaayica iska ahayd warku turkuteen ayuu ahaa waa la dilaydi quraysh rag badan bay soo dirtay baa la yidhaha lilmufaawada raggii ay u soo dirtay heshiiskan iyo bal wada hadalka inay nebiga la galaan waxaa ka mid ahaa curwata ibnu mascuud athaqafi ninka la yidhaahdo curwa ibnu mascuud athaqafi curwata ibnu mascuud athaqafi waa nin reer banu saqiif ka tirsan odayadoodii ugu waaweynaana ka mid ah bale waxay kuba sheegaan mufasiriinta qaarkood labada nin ay lahaayeen lawlaa unzila caleyhi rajulu min alaqryati kuway sheegayaan labada nin labada magaalo waa mid ka mida muu qur-aan kusoo dego curwa ahaabay idhaahdaan curwa loo soo diray dabeetana nabiga calayhi salaatu wasalaam buu yimi waxaa la yidhahaa curwa nabiga in badan buu la hadlay isagoo le waxaan aad la socoto cid la socoto lama arag maxamedow waxaan aad waddo nin tolkii intuu dagaal ula yimaado gunta ka jara adiga mooyaane horta carab laguma hayo nin tolkii intuu u yimaado dagaal unula yimaado raba inuu gunta ka jaro adiga mooyaane cidi kuma arag waxaanse kuu sheegayaa buu yidhi hadday ta kala noqotona waxaan aad wadataa buu lahaa waa awbaash waa koox yani waxaan naf lahayn xashiisha baad soo urursato aad meesha wada war rag hadday sahaleeshaan kuwani wax kaa celin maayaan buu lahaa saxaabadii nabigu ku leeyahen waa iska xaabo waxaan aad wadataaye rag hadday seshaan kuwani wax kaa celin maayaane waa kaa carari doonaan waxaa la yidhaha abubakar baa ka xanaaqay abubakar iyo la fadhiyey markaasuu maalintaa erey xun buu ku yidhi ba la yidhi amsus badra lata buu ku yidhi waa erey runtii aan afka ku macaanayn anaxnu nafiru canhu meeshaa xunuuga buu yidhi ma adigaa ma anagaa ka cararayna buu yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam ma anagaad na leedahay nebigay ka yaacayaan oo u gargaari maayaan wuxuu yidhi la yidhi war waa kuma ninka kani ninka sidan ii caayaya waa kuma waxaa la yidhi waa abubakar wuxuu yidhi ama waladii nafsii biyadihi lawlaa yadun kaanat cindii lam ajzika biha la ajabtuka abubakar nin aada u fiican abubakar waxaa la yidhahdaa min xaysu abc nin kulul buu ahaa nin aada u kulul markuu cadhoodo weliba ayuu ahaa laakiin wuxuu kaloo ahaa dee ummadda nebiga dabadeed calayhi salaatu wasalaam ninkii u khayr badnaa ha kululaade wuxuu ahaa ninkii dadka u khayr badnaa bacda nabiyiha calayhi salaatu wasalaam abubakar markaa shaksi aada u xidhiidh badan oo mujtamaca xidhiidhiya oo wanaagga ka shaqeeya ayuu ahaa curwa markuu yidhi waa kuma ninkan sani caayaye lagu yidhi waa abubakar wuxuu yidhi ilaahay baan ku dhaartee abubakar buu leeyay yani abaal buu igu leeyahy gacan buu hore igu geysto aanan uga abaalgudin buu yidhi sidaa ogeed nin kale haddaadtay maanta waa kuu jawaabi lahay laakiin haddaad abubakar noqotay adiga kula hadli maaya buu yidhi yani wanaaggii hore uu abubakar samayn jiray buu tilmaamaya inuu ninkana abaal ku leeyahay oo raggu abaalka u galay uu yahay deetana wuxuu leeyahay haddaanad abaal hore igu lahayn maanta waan kula hadli lahaa adiga waxaan kuugu dul qaadanaya abaalkaad igu lahayd baan kuugu dul qaadanaya nabiga calayhi salaatu wasalaam buu lasii hadlay baa la yidhaahdaa isagoo gacanta gadhka nebiga taataabanaya say sheegaan culimadu markaasuu mugiirata ibnu shucba dhinaciisa taagan baa gacanta ku dhuftay baa la yidhi oo yidhi war kada gacantaada xune nijaastaa gadhka nebiga dabeetana wuxuu yihi war kana waa kuma waxaa la yidhi waa mugiirata ibnu shucba nin la yidhaahdo wuxuu ku yidhi yaa gudur mugiira markaa wuu caayay khaayin iyo adigu hayla hadli buu ku yidhi mugiira waxaa la yidhahdaa intaanu soo islaamin wuu yaro budhcadeeyey oo isagoo budhcaduu niman helay dabeetana rag buu laayay baa la yidhaahdaa intuu rag laayay buu xoolihiina ka qaaday
dabeetana isagoo ragna laayo dhiig qabo xoolihiina qaaday ayuu islaamnimadu soo gaadhay markaasuu islaam xoolihiina isagoo wato xataa ula tegay bay ku tilmaamaan nabiga calayhi salaatu wasalaam dabeetana nabigu wuxuu ku yidhi islaamnimada waan ka aqbalaya laakiin xoolahan dad aad soo dhacday kaa yeeli maayo marka mugiira waa isku reer waa ibnu akh buu u yahay curwa mugiira marka waa ninkii loo soo doontay maktii raggii uu ninkani laayo waxa kan markii uu loo sheegay la yidhi kan nabarka kugu dhufanayana waa mugiira ibnu shucba ayuu culay qudri khaayin iyo adigu dhibtaad geysatayba weli maad maydhine adoo aan ceebtaadii maydhin baad weliba adigu saayay la hadlaysaa yani weedha ay u tilmaamaysaa calaa kulli xaal curwa waxaa la yidhahdaa meeshii buu daraaseeyey indheindheeyey wuu noqday wuxuu u tegey nimankii quraysheed wuxuu ku yidhi qurayshay ay qowm wallahi laqad wafadtu cala lmuluk buu yidhi wawafadtu cala qaysara wakisra wannajaashi wallahi in ra'aytu malikan qatu yucadimuhu asxaabu ma yucadimu asxaabu muxammadin muxammada wuxuu yihi qurayshay tolkayow boqoradan agagaarkeena iyo dhulka joogo oo dhan anigoo wafdiyaan wada tegay buu leeyay yani ninkan reer taif oo dhan waa odaygeedii wafdi waan ugu wada tegay buu leeyay duwalka hareeraha inaga xiga boqortooyadii qaysare romans waan tegay buu leeyay tii kisre ee bershiyankana waan u tegey tii xabashidee najaashina waan u tegey saddexda boqor baa anigoo wafdiya waan u tegay buu yidhi weligay ma arag buu yihi boqor loo weynaynayo oo asxaabtiisa iyo dadkiisu ay u weyneeyaan sida ay nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam asxaabtiisa u weyneynayaan yani wuxuu tilmaamaya ninkani boqoradu de waa niman lacag iyo askar iyo ciidamo iyo wax la hoosaasi dadka kasab ku wata laakiin nebi moxamed dadka diin buu ku wada calayhi salaatu wasalaam diin baana lagu jecelyay wuxuu leeyahay markaa isagoo aan boqor ahayn oo waxba wadanin haddana cidda la socotaa siday u tacdiiminaysa u weyneynaysa u jeceshahay boqoradu looma weyneeyo buu leeya boqor sida tan loo jecel yahay anigu maan soo arag buu leeyahy saa daraaddeed wuxuu sheegaya baa la yidhi wuxuu yidhi maan arag buu yidhi candhuuf muu tufin ilaa iyo dhulka uma dhicin buu yidhi sacab nin bay ku dhacdo isku masaxayaba laga barakaysanaya buu leeyay nabiga calayhi salaatu wasalaam waysadiisa buu leeyay muu weysaysanin ilaa iyo waysada ka daadata nabiga calayhi salaatu wasalaam waa la kala boobay yani aahaarta nabiga calayhi salaatu wasalaam in lagu tabarukaa shariica waa banaan tahay saxaabadina way samayn jirtay laakiin aathaar saalixiin wax soo arooray ma jiraan yani wadaad waysadii la ismarmariyo ama candhuftii la ismarmariyo iyadu ma jirto abibakar baa u weynaa muslimiinta oo tiisa cidina isma marin idan weli ka weyn abibakar oo imanayaa ma jiro dadkii muslimiinta ah ummadda tan nabiga calayhi salaatu wasalaam dabadii abibakar sidiiq baa u horeeyay iyo cumar iyo raggii la yaqaan raggaa cidna waysadood ma qaadan cidna wax isma marinin laakiin ilaahay rasuulkiisa waa la ismarmariyey iyadoo taasi waa qadiyo ka gedisan waana lagu tabarukay waysadiisa iyo candhuuftiisa iyo xataa qaar ba kaadidiisa xadow nabigu ka celiyay calayhi salaatu wasalaam calaa kulli xaal wuxuu leeyahay ninkan sida loo weyneynayo wayse may weysaysan buu leeyahay ilaa biyaha ka daata xataa waa la ismarinayaa buu leeyahay oo cid baa ismarinaysa marka sida ninkan loo raacsiisan yahay cid loo raacsiisan yahay ma arka buu leeyahay khita fiicanna wuu idin sheegay oo ah war waxba idinla dagaalamayo waxna idinka dooni maayo waan cimraysanaya waan iska tegayaaye u ogolaada qurayshi weedhaasi kumay qancin waxay qurayshi soo dirtay baa la yidhahda haddana nin la yidhahda xulays ibnu calqaba alkananiy axaabishtan baa la socota ninkii odayga uu ahaa isna waayeeladii reeraha ayay kolba nin soo qabanaya waayeelkaasaa lasoo diray baa la yidhi waayeelkaasoo soo socda markuu nebigu arkay calayhi salaatu wasalaam xadiiska bukhaari uu sheegay o kale ninkaasoo soo socda markuu arkay ayuu wuxuu yidhi ninkan inagu soo socda waa nin kamida dadka weyneeye kacbada iyo xurmadeeda iyo xajka iyo cimrada iyo arrimahaasi dadka caqiidaysana xoogga weyneeye weeyaane ka horgeeya buu nebigu yihi xoolihii ishcaarka lagu soo sameeyey xoolihii dee xoolaha marka ay xajka ku socdaan ay hadyiga yihiin qalaaid baa loo soo xidhaa waa lasoo ishcaariya yani astaamo muujinaya inay yihiin hadyi la rabo in lagu soo qalo kacbada bay leeyihin marka xoolaha ka horgeeya buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam oo talbiye kala hortaga labayk allahuma labayk idinkoole iyo xoolahaas ishcaar kale ka horgeeya buu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam ninkaasoo soo socda ninkii markuu arkay talbiyadii iyo xoolahan caynka u egyihiin iyo nimankan aragtidooda mabuu soo gaadhin ee dhexdu iska rogay wuu ku noqday qurayshay buu yidhi waxaan arkay
geeli oo qalaayidiisii wato oo kacbada lagu wado war ma maanta xoolihii kacbada lagu waday ee la rabay in hadyiga la qalo ma maantaa diideen buu leeyahay inaad joojisaan marna uma arka buu leeyahay nimankan talbiyada qaadaya caynkana in laga celiyo kacbada in laga celiyo waxay ku yidhaahdeen baa la yidhi sida musnada imaamu axmed sanad xasane uu ku warinayo ijlis inamaa anta acraabiyun laa cilma lak waar fadhiiso reer miyi baa tahay oo bedow aan waxba garanayn baad adigu tahay iska fadhiisan layidhi waa xaabishtii reer miyigii meesha kuwa quraysh ku weegaarsanay oo dhan odaygoodii marka waxay leeyihiin siyaasadda iyo qaabka rag isu makriyo adigu waxba garan maysid bay yidhaahdeen halka iska fadhiisaa lagu yidhi quraysh waxay soo dirtay baa la yidhi haddana 2 nin oo kale makras ibnu xafs nin la yidhaahdo ayay soo dirtay waxay ka soo dabageysay baa la yidhi haddana suhayl ibnu camar suhayl ibnu camar nin saxaabiya macruufa weeyaan suhayl waa ninkaynu ku soo marray zawda bintu zacma ummahaat almu'miniin haweenaydii ka mid ahayd maalintii beder markii lasoo qabtay waa ninkay lahayd war maad si sharaf la u dhimataan maxaa idinkoo sidaa midiin xidhxidho ku keenay suhayl ibnu camar saxaabi buu ahaa aad u aftahana markan waa gaal marka waxaa la yidhahaa quraysh waa ninkii u hadli jiray markay aftahannimo noqoto ninka geedka la fadhiisiiye oo quraysh u hadla ayuu ahaan jiray marka nin geed oo aad u hadal yaqaana buu ahaa quraysh markaa suhayl ibnu camar bay dirto waxay yidhaahdeen bal suhayl kani reerbihii buu hayo waxba garan maaye orod geedka isagoo reerka afkiisa kusoo hadal markuu nabigu arkay calayhi salaatu wasalaam suhayl ibnu camar oo soo socda ayuu magaciisa ka tafaa'ulay dabeetana wuxuu yidhi laqad sahula lakum amrukum arrinkii ilaahay waa inoo fudaydiyey buu nebigu yidhi yani suhayl magaca sahala yani sahula waa fududaaday ayuu ka yimi waa yani ninka magaciisii ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam ka tafaa'ul ka sameeyey oo markaa wuxuu leeyahay mar haddii ninkaaba lasoo diray ilaahay arrinkeeni waa inoo fudaydiyey buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam laqad araada alqawmu sulx xaytu bacasuu hada arajul wuxuu nebigu yidhi baa la yidhi calayhi salaatu wasalaam nimankii qurayshi heshiis iyo wanaag bay doonaysaa mar hadday ninka kan soo direen yani dhaqamada la yaqaan waxaa ka mid ah kheyruhu rag baa jira markay nabadda doonayaan rag gaaray diraan colaada marka la doonayana mid garta cuyubu celiyaa la diraa yani qof aan waxba ka goyno macangaga ayaa la diraa wanaagga marka la doonayana qof wanaag ka taliso sama ka taliso la yaqaano halku fadhiisto in khayr ka soo baxayaan ayaa la diraa suhayl ibnu camar wuxuu ahaan jiray ragga wanaagga ka taliya ragga caqliga badan ee wanaagga ka taliya ayuu ahaan jiray walidalik ayuu nebigu markuu arkay suhayl oo soo socda wuxuu yidhi mar haddii suhaylba lasoo diray qurayshi waxay raadinaysaa sulx iyo wanaag bay doonaysaa suhayl waxay quraysh ku soo dirtay waxaad heshiis doonaysa oo kala gal bay yidhahdeen laakiin hal midi heshiiskaa waa inay ku jirtaa sanadkan in muslimku noqdo heshiis nimankaa la soo gal laakiin bisharti heshiiska maxaa u asaasa sanadkaa maanta ah inaanay cimrada soo doonanin ee halkaa ay joogaan inay dib uga noqdaan suhayl ibnu camar wuu yimid dabeetana wuxuu nabiga la galay calayhi salaatu wasalaam heshiis dheer qurayshi intii heshiisyadani socdeen in badan bay kooxa ka mid isku dayeen inay wax weeraraan ama ay dagaal ridaan laakiin ilaahay baa badbaadiyey subxaana watacaala wuxuu yimi meeshii dabeetana waa la wada hadlay muddo markii la wada hadlayeyna waxbaa lagu heshiiyey markii la heshiiyey nabiga calayhi salaatu wasalaam wax lagu heshiiyey ayaa waxaa la rabay heshiiskan inuu qoraal noqdo markaasi oo la qoro heshiiska markii qoraal laga dhigayey ayaa waxaa loo yeedhay caliy bna abi aalib dabeetana waxaa la yidhi heshiiskii buu nebigu yeedhinayaa calow qor wixii suhayl ibnu camar lagula heshiiyey qaabkii loo siyaaqaynayay ama loo qorayey heshiiska ayaa muran ka bilaabmay markaas nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi waxaad qortaa cali baa lala hadlaya bismi illaahi araxmaani araxiim qor buu nabigu yihi yani warqada heshiiska halka ugu sarraysa waxaad ku qortaa maxay bismi illaahi araxmaani araxiim suhayl ibnu camr wuxuu yihi sug ama araxmaan fawallahi ma adri raxmaanka aad sheegtay buu yihi ilaahay baa ku dhaartay anugu garan maayo waxay tahay ee waxaad qortaa buu leeyay waxay carabi qoran jirtay waxaad qortaa buu yihi bismika allahuma magaca allaana ku bilaabanay qor buu leeyay
yani sifadana araxmaan araxiim ee ilahay isku sifaynayu diiday qaaluu wama araxmaanu waa ka qur-aanka ba ilahay ku tilmaamaya inay yidhaahdeen raxmaanka inaad sheegaysa waa kuma marka sifadaa waa diiday wuxuu ihi taa anugu garan maaye waxaan garanayaa bismika allahuma ee sidaa qor waana taynu qoran jirnay taasi muslimiintii way ka xanaaqeen waxay dhahdeen ma maanta yidhahdeen raxmaan raxiim la qori maayo wallahi laa naktubuha ilaa bismi illahi araxmaan raxiim bay dhahay ila waa la joogaa meesha ilaahay baa ku dhaartay waxaan bismi illahi araxmaan araxiim ahayn inaan la qoraynin nabigu calayhi salaatu wasalaam waxyaabaha aan keensanaynin wax weyn ee wax shareeca ama caqiide la buriye aan keensanaynin waxba iskuma adkeyn jirin wuxuu yihi uktub bismi illah bismika allahuma u qor buu yidhi sidan uu rabo magaca allaanu ku bilaaban ma anagaa magacaa la diidaya mar hadday tahay araxmaan araxiim inta muranku ka taagan yahay kaa reeb buu nabigu yihi bismika allahuma da qor tii baa la qoray dabeetana wuxuu yihi waxaad qortaa hada maa qaada calayhi muxamadun rasuulullah kani waa wixii uu kula heshiiyey muxamed oo ah ilaahay rasuulkiisii caloo qoraya ayuu sahayl yihi sug wallahi law kuna naclamu anaka rasuul allahi ma sadadnaaka can lbayt walaa qaatalnaak walakin uktub muxamed ibnu cabdillah ilaahay baan ku dhaartay buu yidhi haddaanu ognahay inaad ilaahay rasuulkiisa tahay kumaanan diideen buu leeya inaad kacbada timaado iyo masaajidka inaad timaado kumaanan diideen magacaaga qoraanaka ayagaanu qoraynahay rasuulullahi da ka tuur buu leeya maxamed oo ina cabdillaahiya qora buu leeya maxamed bin cabdillaahi ku qor meesha oo rasuulullahi da ka reeb dabeetana nabigu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam wallahi inii larasuulu llahi wain kadabtumuuni ilaahay baan ku dhaartay ilaahay rasuulkiisii baan ahay xataa haddaa i beenisaana ilaahay rasuulkiisii baan ahay qor buu ku yidhi muxamed ibnu cabdillaahi u qor cali baa wuxuu yihi wallahi inaanan qoraynin sideedaasay u qoraanaysa muxamedun rasuulullah sahil ibnu camarna waa diiday wuxuu yidhi anigu haddaan ilaahay rasuulkii idiin rumaysnahay dee maanta wada hadal ma taagnaadeen ee waxaynu isku haynaaba waa rasuulnimadaad sheeganayse magacaaga qoraanaka ayagaanu qoraynahay calina waa diiday inuu masaxo nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi baa la yidhi cali war balitus nabigaa gacantiisa ku masaxay markaa rasuulullahi ka jaray intii ay la socotay nabiga calayhi salaatu wasalaam baa ka jaray maxamed ibnu cabdillaahigaa udaa baa la yidhi maxamed oo ina cabdillaahigaasiya besa ku qornaato wuxuu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam waxaad ku qortaa calaa an takhlu baynana wa bayna albeyti fanatuufa bih inaad noo banaysaan inaanu tagno xaramka oo aanu soo tawaafno suhayl ibn camr wuxuu yihi wallahi la tataxadath alcarab ana akhadna bagda carabi marnaba ku sheekaysan mayso waana la sanduleeyey ama waana la qasbay ee qora buu yidhi sanadka soo socda sanadkan ma yeelayo in la yidhaahdo inta loo yimi baa qasab lagu galaye waxaan aqbalaya in la yidhahdo inta loo yimi baa heshiis lagu galay markaa sandulle nagu geli may sidee noqo sanadka kan inaanu kuu banayno xaramka aad timaado oo aanu kuu banayno laakiin sanadka soo socda ah tii baa la qoray sanadka soo socda in heshiisku ahaado suhayl wuxuu yidhi wacalaa anahu laa yaatiika mina rajulu wain kana calaa diinika ilaa radatahu ilayna waxaad kaloo qortaa buu leeyahy inaan nin kuu iman annaga naga mid a quraysh ka mid a xataa diintaadana ha haystee ilaa iyo inaad noo soo celinayso heshiiska ku dar waa muslimiintan lagu haysto maka iyo dadka soo islaamay iyo waxaas qof damboo hijrooda inaan la aqbalin waanu ka daba imanaynaa qof kasta yani waxaa loo dhaqmayaa laba dawladood oo dawladiba dawlada kale ay ictiraaftay oo cid waliba meesheeda degantay marka wixii naga soo baxsaday ee xadka ka soo gudbay idinka idin yimaada inaad soo celinaysaan qor buu leeyahy waxalaaliyo wixii muslim ee xagga iyaga ka yimaada idinka idin yimaada inaad soo celinaysaan muslimiintii waxay idhaahdeen subxaana allah kayfa yuraddu ila lmushrikiina waqad jaa muslima ilaahay baa xumo ka ufana say caqligaba u gashaa nin muslim oo gaal ka soo cararay dib ha loogu celiyo war waxaasi caqligama gasha bay idhahdeen
isna wuxuu leeyahay saas baan idinkula heshiinaya wax allaaliya wixii naga yimaada inaa celisaan murankiiyoo taagan oo uu leeyahay heshiis waa inoo kaasuna wax kale ma yeelayo ayaa halkaa waxa ka soo baxay abujandal nin la yidhaahdo abujandal odaygan heshiiska gelayaa dhalay suhayl ibnu camar baa ka dhalay abujandaloo silsilada jiidanaya lagu xidhay oo xabsi ka soo baxsaday baa halkaa ka soo baxay waa nin muslima oo markuu islaamay la xabsiyey oo dabeetana la ciqaabayo maka lagu hayay oo markii maka dagaaladan iyo waxaan quraysh u soo baxday jaanis helay oo soo baxsaday oo maqlay muslimiintii hadday soo dhawaadeen ay maka agaarkeeda joogaan oo isla mar uun ciidanka muslimiinta aad isku dhex tuurtay halkaasi aad ka raacdeen abujandalo xadkihiisii iyo wata quyuudiisii ayaa soo galay maka xaggeeda hoose ka soo baxo muslimiintu isku soo dhex tuur suhayl ibnu camar wuxuu yidhi hada ya muxamed awal man uqaadika calayha an taruddahu ilay waxaan heshiis kula galoo dhanna kaasi baaban ku eegayaa buu yidhi waa kii u horreeyey ee aan raba inaad soo celiso heshiiskaynu wada gallay kanbuu ka bilaabmaya waana kii ugu horreeyey heshiiskiina weli ma dhammaanin formalitigii baa qoraal af ahaan waa ka dhammaaday araadii la isweydiidaystay laakiin formalitigii baa weli socda waa kan nebigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam innaa lam naqdi lkitaaba bacdu weli qoraalkii maynan dhammayn buu yidhi wallahi idan lam usaalixaka calaa shayin abada buu isa soo tagay markaa haddaad taa yeeli weydo wallahi inaanan weligay heshiis dambeba kula gelin buu yidhi halkaasuu baxay suhayl ibnu camarna kaa maanta haddaad yeeli weydo dee malaa nin kale hadduu ahaan lahaa inuu baaba yaro dabdabcilaa waana inankiisii kuwa isagu xidhay weeyaan kan meesha maraya wuxuu leeyahy markaa kaa haddaad maanta diiddo heshiis dambe aan kula gelayaaba ma jirto nabigu calayhi salaatu wasalaam markaa qaab codsiya buu u dhiibay faajishu lii buu yidhi haddaba kan aniga ii ogolow kan yani iisii daayo adigaan kaa codsanayaayo iisii daayo midkan ii ogolow ma ana bimujuusif laka buu yidhi marna ku ogolaan maayo yeeli maayo inaan kaa ogolaado qaala balaa fafcal maya waad ii ogolanaysaa yeel buu nabigu ku celi may buu yidhi ma ana bifaacil marna ku yeeli maayo makras ibnu xabsigii ka soo horreeye la socday suhayl ibnu camarka wada socdeen ayaa markuu arkay isagoo nabigu ninkan baryoolay iyo ogolow kan oo siida ayuu yidhi bal ajaznaahu laka kii kalaa yidhi waa ku ogolaanay kaxayso odaygii waa la marsi waayey suhayl ibnu camar ba yeelayuu isa soo taagay kii kale waa ogolaaday laakiin suhayl waa diiday marna ma aqbalaya buu yidhi kan heshiiskii baa markaa la galay heshiiska waxaa kaloo ka mid ah 10 sannadood inaan la dagaalamin 10 sannadood in dagaalka la joojiyo oo quraysh iyo muslimiintu aanay isdilin oo dadkoo dhammi uu nabadgelyo wada helo waxaa kaloo ka mid ah waxalaaliya wixii quraysh ka yimaada iyadoo aanu soo fasixin weligiisii iyo ciddii arrinkiisa haysay ee islaamo xataa diintana ha qaataane raga in dib loogu soo celiyo quraysh wixii muslimiinta se ka yimaada ee quraysh xaggooda yimaada inaan muslimka lagu soo celin annaga ka naga yimaada waa soo celinaysaan bay leeyihin idinka idinka yimaado se idinku soo celin mayno oo qora buu nabigu yidhi waa aqbalay waxay idhahdeen waxayd inoo qabtaa in dhexdeenna cayba makfuufa yani inaynu kala nabad gallo oo aanu jirin laa islaala walaa iklaal tuugo iyo seef iyo waxba doona inaanayna dhex marin waxaad kaloo ku qortaa baa layidhi heshiiska ninkii doonaya safka nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam inuu heshiis ka galo inay u banaantay ciddii rabto safka quraysheed inay ka soo galaanna inay u banaantay yani heshiiska aynu wada saxeexanay qabiil kastoo yidhaahda xagga maxamed baanu marray heshiiska in lagu dabaqayo iyana raacaya qabiil kastoo yidhaahdo safka quraysheed baanu gallayna in lagu dabaqayo heshiiskaasoo ay raacaya waa la yeelay khusaaca oo markii horeba aynu nidhi xilf wadaag hore iyagiyo reer bani hashim ka dhexayn jiray iyagu waxay idhahdeen waxaanu la heshiis gallay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam dhankiisa ayaanu gallay banu bakar oo iyagana qabiilka isdili jireen waa laba qabiilo ishayey
marka horeba iyagoo colaadi dhex taale khusaaciya bani bakr oo bani bakr kuwa la yidhaahdana oo reer kanaana waxa u gargaari jiray quraysh iyaguna bani bakrna waxay idhahdeen safka quraysheed baan anana ka gallay heshiiska waxaa kaloo ku jira baa la yidhi inaad sanadka naga noqoto oo aanad maka gelin sanadka soo socda inaad timaado markaad imanaysana inaanu kuu banayno kacbada iyo intan oo dhan inaanu kaaga baxan khusaaca oo markii horeba aynu nidhi xilf wadaag hore iyagiyo reer bani hashim ka dhexayn jiray iyagu waxay idhahdeen waxaanu la heshiis gallay nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam dhankiisa ayaanu gallay banu bakr oo iyagana qabiilkay isdili jireen waa laba qabiiloo ishayey marka horeba iyagoo colaadi dhex taale khusaaciya bani bakr oo bani bakr kuwa la yidhaahdana oo reer kanaana waxa u gargaari jiray quraysh iyaguna bani bakrna waxay idhahdeen safka quraysheed baan anana ka gallay heshiiska waxaa kaloo ku jira baa la yidhi inaad sanadka naga noqoto oo aanad maka gelin sanadka soo socda inaad timaado markaad imanaysana inaanu kuu banayno kacbada iyo intan oo dhan inaanu kaaga baxno adiga iyo asxaabtaadu inaad soo gashaan 3 maalmood oo qura inaad joogtaan 3 maalmood oo qof waliba uu sito silaaxu raakib oo suyuufta aan mar qura laga bixinaynin galkeed nin seef bilaa gala sidan kara aanu jiraynin waa la aqbalay heshiiskiisaas bay muslimiintu ku galeen qodobada noocaasiya waana heshiiskaa sheegaya inay sanadkan muslimiintu noqdaan sanadka dambe un inay u ogol yihiin inay yimaadaan oo muddo 3 maalmood inay maka joogaan heshiiskani wuxuu keenay markaasi qodob aad muslimiinta agtooda xasaasiyad badan baa heshiiskan markuu nabigu la galay ka yimi saxaabadii dhowr shayba way aqbali kari waayeen nabiga la joogay calayhi salaatu wasalaam waxay aqbali kari waayeen siiqadan islaamiga ee loo diiday in waraaqda loo qoro الرحمن الرحيم tan la diidayay محمد رسول الله dan la diiday wixii la mid waxay kala aqbali kari waayeen oo aad ula adkaatay in qofkii muslimka ahaa ee soo baxsaday yimina in dib loo celiyo oo mushrikiinta lagu celiyo cidda kale muslimka soo baxsatay qolada tabadanaan la soo celiyo dabeetana maalmaha nabiga calayhi salaatu wasalaam hadallo badan bay ku celceliyeen hadalladay nabiga ku celinaya waxaa ka mid ahaa saxiix muslimku uu dhigayo yaa rasuul allahi taktub hada ma waxaad qoraysaa baa lagu yidhi ilaahay rasuulkiisiiyo heshiiskan iyo diidan oo aad moodo inay aad u rabaan in wax laga bedelo yaa rasuul allahi taktub hada qaala nacam haa buu yidhi ilaahay rasuulkiisi inahu man dahaba ilayhim faabcadahu allah yani in muslimkana aan la soo celin iyaga inaga yimaada xaggooda yimaadana in loo celiyo masaasaad qoraysaa buu yidhi haa buu ku yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam dabeetana nabigu wuxuu yidhi inahu man dahaba ilayhim faabcadahu allah ka annaga naga yimaada xaggooda qabta ilaahay ba kaa fogeeyey waa nin ridoobay maxay muslim ku falayaan soo celintiisa hadduu diintiiba ka soo baxo oo gaalada xaggeeda doontay oo nebi maxamed ka cararay soo celintiisa maxaa lagu falayaa saasi daraaddeed wuxuu nabigu yidhi ka annaga naga taga ee iyaga qabta kaa allaba ha fogeeye buu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam aniga iyagu soo noqonin waman jaaana minhum ninka iyaga ka mida inoo yimaada yani ninka muslimka ee mustadcafka ee xaggeena yimaada sayajcalu llahu lahu farajan wamakhraja ilaahay baa kuwaana albaab kale u furi doona iyo makhrajo meel ay ka baxaan cadhadu aad bay u badatay markii weedhaa la maqlay waxaa la yidhahdaa cumar ibn alkhataab maalintan hadallo badan buu nabiga ku celceliyay calayhi salaatu wasalaam intuu yimi buu yidhi alasta nabiyullahi xaqa nabigu la hadlaya calayhi salaatu wasalaam miyaad ilaahay nebigiisii oo dhaba ahay buu ku yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi bala waana hay buu yidhi alasna cala alxaqi wacaduwuna cala albaatil annagu miyaanan muslimiintii xaqa ku taagnayd ahayn buu leeyahy cadowga iyaguna aanay ahayn gaaladii baatilka ku sugnayd nebigu wuxuu yidhi qaala bala haa buu nebigu ku yidhi qultu cumar markaa wuxuu leeyahy falima nucطi daniya fii diinina idan taliidata maxaanu diintayada ugu qaadana dullinimadan maxaanu aqbalaynaa buu leeyahy marka haddaan anagu ahlu xaq nahay iyaguna ahlu baatil yihiin adigu ilaahay rasuulkiisii aad tahay
sidee baynu dullinimo u aqbalnaa gaal baa wax kuu yeedhinayo wuxuu yeedhiyey sahil ibnu camar unbaad maanta leedahay hala qoro sidaa loo yeele sidaan waxaan u aqbalnaa buu leeyahy muslimna hala celiyo sida tanna hala yeelo sidaan tan u yeelayna nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi xadiidku musnad imaamu axmed buu ku yaallaa waana xasan wuxuu nabigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam inii rasuulu llah walastu acsiihi wahuwa naasiri anigu ilaahay rasuulkiisii baanahay caasiyina maayo ilaahay wuxuu i faray isagaana ii gargaaraya yani wuxuu tilmaamaya nabigu calayhi salaatu wasalaam qadiyadatan in qadiyad waxyiya tahay talo iyo warar kale wax u baahan inaan ahayn dabeetana anigu ilaahay rasuulkiisii baan uma caasinayo wixii ilaahay uu i farayna sidoodaan u fulinaya waxaa jirtay baynu nihi markuu nebigu soo baxay calayhi salaatu wasalaam riyo u sheegay uu ku riyooday oo ahaa riyada suuratu maxamedna ay ka warramaysa inay tegi doonaan muxalliqiina waa muqasiriin inay cimraysan doonaan iyagoo bartimaa xirtay oo bartimaa gaabsaday oo dee lasoo cimraysan doono ru'ya alambiyana waa waxyi oo intee lasaga weer haddana waxaa muuqata in la leeyahay noqda arrimihii weli way isu qaban lahayiin cumar iyo rag badan oo saxaabada ka mid a cumar wuxuu yidhi awalaysa kunta tuxadithunaa ana sana'ti lbayta fanatufu bihi miyaanad noo sheegaynin haddeer inaanu tegi doono xajka oo aanu tawaafi doono miyaanad sidaa noo sheegin buu yidhi ilahay rasuulkiisiiyo nabigu wuxuu yidhi bala faakbartuka anaka taatihi alcaam kuu sheegay anigu miyaan ku yidhi sanadkaa tegaysaa buu nabigu yihi alayhi salaatu wasalaam inaad tegi doonto oo xiiran doonto oo saatan waa sheegay laakiin miyaan kuu sheegay buu nabigu leeyahy alayhi salaatu wasalaam inay sanadkan dhici may baan idhi buu yidhi waana tegi doontaa waanad ku dawaafi doontaa buu nabigu ku yidhi alayhi salaatu wasalaam sida xadiiskii saxiixu albukhaari uu tilmaamayo cumar muu fadhiisanin hadalkii abibakar buu u tegey abibakar buu hadalkii oo kale ku yidhi abibakar wuxuu yidhi yaa cumar ilzim garza xaytu kan fainii ashhadu anahu rasuulu llah abibakar muslim wuxuu kaga gedisnaa maalinna wuxuu nebigu yidhi hadalka ma soo celin abubakr sidiiq waatanu yihi waxyaabaha loogu bixiye la tilmaamo waxaa ka mida markay qurayshi tidhi ya carabi wuxuu yidhi xalayba inta lay dhoofiyey laygeeyey baytulmaqdis inta maka layga kaxeeyey haddana baytulmaqdis baa layga qaado samaawaat sabca baa lay dhaafiyey dabeetana shajaratulmuntaha baan tegey dabeetana war baa ilaahay soo sheego dib baan usoo noqdo intaba waanu isla xalayto ee waxaasuu sheegay saaxiibkaayo ma rumaysanaysaa haabuu ku yidhi yani nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam wixii ilaahay uu soo waxyado si dhab uu rumaysana wuxuu ku yidhi markaas isagoo cumar la hadlaya elzam garza waar arrinka nebi maxamed un laazim koorihiisa qabta yani ha sii dayn haddaad aniga war iga rabto abibakarow hayso nabiga calayhi salaatu wasalaam dacalka qabso ha sii dayni waxaanan kuu sheegaya anigu oon ilaahay uga markhaati kacay inuu ilahay rasuulkiisa yahay cumarna wuxuu yihi waa ana ashhad amba ilaahay rasuulkiisii inuu yahay waan qirayaaye laakiin in gaalo waxa laga aqbalo waan ogolay kan baa isaga la adkaatay cumar oo aqbali kari lahay ilaahay rasuulkiisii inuu yahay waan qirayaa buu leeyay cumar weedhuhu maalintan lahaa waagii dambe wuxuu odhan jiray maa ziltu asuub وأتصدق وأعتق من الذي صنعت مخافة كلام الذي تكلمت به يومئذ حتى رجوت أن يكون خيرا كما زولين بولي ولغي إن صومه أو صدقة يسته أو الضوما حريه ما لم تأوحي النبي كويري بولي يعني سألوك الخلفتنا ما لم تعامر كان ديبو حصوص طبع صون إيا صدقة إيا وحبعي أيان سبين شري بولي إلى أيان سيدي إلى أي تاكاعفي waxaa meesha ka muuqata cumar muu rabin inuu nabiga caasiyo calayhi salaatu wasalaam laakiin wuxuu rabay inuu fahmo xikmada mawaaqiftan ku jirtaa maxay xikmada mawqifkan inaynu qaadano ku jirtaa maxay tahay ee shuruuda sulxiga ee gaaladu inoo yeedhaysa xikmada ku jirtaa maxay wuxuu arkayay in meeshan ay ku jirto inay gaaladu gacan sareen kaanama ay leedahay ولذلك baa culamadu waxay yidhahdaan wixii ka soo falay cumar masalada ku saabsanaayo dhami insha allah maajuur inuu noqdaa bay u badan tahay waayo wuu ijtihaadayay una wuxuu rabay
ilaahay rasuulkiisa iyo diintooda inuu cizeeyo kamay ahayn yani inuu diinta ka hor yimaado isagu wuxuu diidanaa un wuxuu islahaa malaa gaaladii waaba loo yaro dabdabcee diinta kor u qaado ayay ka ahayd iyo ijtihaad nabigu calayhi salaatu wasalaam sidii ayuu qaatay sulxiga heshiiskani markuu socday waxaa la yidhahdaa saxaabadii murugo hayru caadiya ku dhacday xataa kaaduu an yuhliku axaadiista qaarkood waa kuwa tilmaamaya waxaabay ku dhawaadeen maalintan inay halaagsamaan weliba gaar ahaan markay arkeen abujandal oo dib loo celinayo oo qaylinayo le yaa macshara almuslimiin atarudunanii ilaa ahli shirki fatuftununii fi diini waar muslimiin buu ku qaylinaya war magaala igu celinaysaan waxaad doonaysaan in diinta layga saaro magaala dib igu celinaysaan oo waxaad rabtaan in diinta layga saaro aw nabiguna leeya ya aba jandal isbir waxtasib aba jandalow sabir buu nabigu ku lahaa oo xisaabso ilaahay dartii u xisaabso waxay dhib kugu gaadhaysaa adkayso oo sabir oo ilaahay dartii u xisaabso faina allaha caza wajal jaacilun laka waliman macaka min almustadcafiina farajan wamakhraja ilaahay baa adiga iyo kuwa kale maka lagu haystaba ilaahay baa kuu yeeli doona wadaha ka baxdaane sabir buu nabigu ku lahaa calayhi salaatu wasalaam inaa qad caqadnaa baynana wa bayna alqawmi sulxa nimankan heshiis baanu la gallay heshiiskana jebin mayne sabir oo adkaysu nabigu ku lahaa calayhi salaatu wasalaam waxaa la yidhahdaa cumar abujandal buu dhinac socday isagoo seefsita oo ku boorboorrinaya oo isle mar uun yarkumuu seefta la boodo odaygama madaxa ka jaro seeftan intuu la boodo abujandal laakiin waxba muu ka jarine siduu nebigu yidhi oo aqbalay oo uu iska noqday waana la celiyey waxay muujinaysaa siday saxaabadu halkay taagnaayeen cumar ra'yiga kani markii hore lamuu toosnayn laakiin in warka nebiga la raaca iyadu uma baahna falsafad iyo sharax badan waayo ilahay baa qur-aanka wuxuu ku leeyay wamaa kana limu'minin walaa mu'minatin ida qada allahu warasuulahu amran an yakuna lahum alkhiyara min amrih ilahay baa wuxuu leeyay uma cuntanto rag iyo labtoona qof muslima haddii ilahay iyo rasuulkiisu ay wax xukumaan in ay doorasho yeeshaan uma cuntanta baa ilahay leeyay ilahay hadduu wax xukumo ama nebi maxamed alayhi salaatu wasalaam uu xukumo doorasho malihid adigu dambe way dhammaatay waa inaad raacdaa qurayshina waxaad moodaa weli inay muslimiinta cadcadaadiso xataa fi lmufaawadaat waa ka muuqata bale waxaa ka muuqday mararka qaarkood xataa inay isku dayayeen inay dagaal sameeyaan oo kooxo kamid a quraysh taasi intii xataa wadahadalladan iyo waxyaabaha kale socdeen dhowr goor weeraray soo qaadeen dabeetana ciidanka muslimiinta aba qabtay markay qabteenna nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu faray in la iska sii daayo ay nebigu calayhi salaatu wasalaam waktigan oo dhan wuxuu raadcaynayay in heshiisu la galo waana ka ilaahay subxaana watacaala qur-aankiisa ku tilmaamaya wahuwa aladii kafa aydiyahum cankum waaydiyakum canhum bibatni maka min bacdi an adfarakum calayh waa kii ilaahay subxaana watacaala gacmihiina kala xidhay kadib markii aad ku kulanteen maka idinkoo guulaystay haddana ilaahay subxaana watacaala idinka celiyay dad badan buu ka qabtay nebigu calayhi salaatu wasalaam wuu sii daayay mar kastaba arrimahan oo dhamme muslimiintii waxaad moodaa inay werwer badan soo abuureen mar 30 dhalinyaro ah baa weerar soo qaaday waa la qabtay dabeetana nebigaa sii daayay calayhi salaatu wasalaam haddana intii sulxiguba dhacay kadib ee mushrikiinta iyo muslimiinta waxoogaa la isku dardarsamay afar mushrikiinta ka midoo nebiga si xun u caayaya buu arkay salamata bna alakwac saxaabigii la odhan jiray wuu soo qabtay haddana nebiga calayhi salaatu wasalaam sii daayey 70 nin oo kaleo mushrikiinta ka mid ah haddana lasoo qabtay nebigu calayhi salaatu wasalaam wuu sii daayey ilahayna waa ka qur-aanku ku tilmaamaya huwa aladii kafa aydiyahum cankum waaydiyakum canhum bibatni maka min bacdi an adfarakum calayh axdaadtan in ay dagaal soo sameeyaan oo la qabto oo haddana uu nebigu iska sii daayay calayhi salaatu wasalaam dhacdooyinka ah iyo dhacdooyinkii ka horreeyey
ee ku saabsisnaa heshiiska iyo bunuudda ama qodobada uu ka kooban yahay oo ay ka mid ahayd baynu leenahay inay muslimiintu sanadka noqdaan ay ka mid ahayd in ciddii muslima ee soo baxsatay iyaga u timaada muslimiinta u timaada loo soo celiyo intaasi oo lagu daro haddana qaabkii loo qoray waraaqda oo ay nimanka quraysheed isku adadkeynayeen nebiguna calayhi salaatu wasalaam uu fudaydiyey waxaad moodaa arrimahaas oo dhami inay saxaabo badan maalintan ka cadhaysiisay ama niyad jabisay ama waxaad moodaa arrimahaas oo dhami inay saxaabo badan maalintan ka cadhaysiisay ama niyad jabisay ama ay yaro madax adeygeen iyagoo aad odhan karto mala waxay in badan rajaynayeen in alla subxaanahu watacaala uu axkaam kala soo dejiyo sulxiga kan wax laga bedelo waxaynu soo tilmaamnay mawaaqiftii uu cumar taagnaa ama weeruhu nebiga kulaha calayhi salaatu wasalaam waxaanad moodaysa inaanay mawqif cumar qura ku kooban ahayne murugo badan inay u geysatay saxaabadii nebiga calayhi salaatu wasalaam sida awgeed ayuu nebigu wuxuu saxaabada faray in naxrin la sameeyo in taxallul cimraa u xidhnayd way soo xidheen way soo socdeen laakiin waa laga joojiyey waa fain uxsirtum fama staysara min alhadyi markaa haddii lagaa joojiyo xajkii ama cimradii intaad xidhxidhatay adigoo soo xidhay oo soo socda oo meesha ku socda lagu diiday inaad gasho ama xanuun kugu dhaca ama wuxun hadday yimaadaan waxaa banaan markaa qofku inuu halkaa uu joogo ku qalo xoolihii oo uu qaato ruksadaasi alla siiyey subxaana watacaala nebigu markaa wuxuu amray saxaabadii hal la qalo xoolaha si loo taxallulo yani ixraam baa u xidhnaa cimray u socdeen si markaa cimradii loo dhammaystiro oo halkaa quraysh ay ku joojisay loogu dhammaystiro xoolihii hadyiga ahaye loo waday xarabka loo waday iyo xagga kan in halkan lagu qalo markii uu nebigu amray calayhi salaatu wasalaam uu yidhi kaca oo xoolahana qala idinkuna xiirta ayaa cidi nebiga la hadli weyday calayhi salaatu wasalaam aad bay saxaabadu maalintan u murugaysnaayeen waxaanay rajaynayeen malaay isleeyihiin in uun balin waxyi kale soo dego oo masaladan sidan wax laga bedelo nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi kaco sidaa yeela cid baa dhaqaaqi weyday mana ahayn wuxuu uga bartay saxaabadiisa intuu wax u sheego in la dhaga adayga ma ahayn wuxuu nebigu u bartay calayhi salaatu wasalaam mar labaad buu nebigu yihi war kacoo xiirta oo xoolahana qala dabeetana waa la dhaga cuslaaday mar saddexaad ayuu yidhi kaca oo xiirta waa la dhaga cuslaaday arrinkii markuu nebigu calayhi salaatu wasalaam ay ku dhaga adkaadeen saxaabada ku soo baxa haweentiisii la socotay umu salama saxaabiyadii la odhan jiray ummahaatulmu'miniinka ka mid ahay ayuu wuxuu nebigu ku yidhi maanta waxaan kala kulmay asxaabtii dabeetana wuxuu sheegay nebigu calayhi salaatu wasalaam qisadiisii way la talisay markaas tale ayay soo jeedisay umu salama ay nebiga kula talinayso inuu yeelo oo azmadan ama dhiftani ay ku faydmayso waxay tidhi ilaahay rasuulkiisiiyow adigu haddaad 3 jeer sidaa tiraahdo ka aqbali weyday waxba hadalka la sii wadana adigu bax neefkaaga qal kii ku xiirayna u yeedho xiiro markay arkaan inaad adigu waxaan camaliyan u samaysay dee waxay arki doonaan inaan arrinkan kasoo noqnoqod lahayn nebi maxamed ba calayhi salaatu wasalaam inuu fuliyey nebigu calayhi salaatu wasalaam taladii umu salama ayuu qaatay laataynu li nebigu aad buu u tashi badnaa aad baanu saxaabada iyo dadka ula tashanayay waataynu soo tilmaamnay xagga horena inaynu in badan isagoo saxaabada la tashanayay soo tilmaamnay xataa iminka intaanu xudaybiya joogay inagii soo tilmaamnay inuu kala tashaday markii la yidhi quraysh iyo axaabish iyo dad badan marka uu soo baxay inuu dhabarka ka weeraro oo u weydaarto caruurtii iyo reerihii iyo xoolihii iyo waa kan abubakar ra'yiga uu soo jeedinaya ilaahay rasuulkiisa iyo umayna soo bixin dagaale cimradeenaynu iska wadanina waxay naga hor yimaadeen inoo diidan aan la dagaalano iminka markii qadiyadani ku adkaatayna umu salama baa nebiga la talinaysa calayhi salaatu wasalaam oo runtii umu salama waxay u tilmaamtay nebiga ra'yi aada sadiid u ah ra'yi aada u toosan
oo ah inuu isagu camalka fuliyo. markay saxaabadu arkaan siduu nebigu yeelayay calayhi salaatu wasalaam dhammaantood way ka daba yeeli doonaan. sidii buu yeelay nebigu calayhi salaatu wasalaam. neefkiina wuu qalay, cidna wuu u yeedhay oo madaxii baa loo xiiray. markay arkeen in nebigii yeelay oo aan war kala harsanayn ayay saxaabadiina kaakaceen oo xoolihiina qaleen. ilaa iyo baa la yidhaahdaa 70 geela oo neefkii geelaba 7 nin laga qalayo ayay qaleen. waxaanay bilaabeen inay isu xirxiraan. laakiin waxaad dareemaysaa xataa iyagoo awaamirtii fuliyey nebiga calayhi salaatu wasalaam oo ku dayday, haddana mas'aladatani siday ugu weynayd. wuxuu saxaabiga xadiidka warinaya ku tilmaamaya waanu isu xirnay buu leeyahay xataa kaada bacduhum yaqtulu bacda. dami iyo werwer daraaddeed xiirista ilaan madaxa iskoogoyn gaadhnay buu leeyahy. yani dee qof maqani hadduu kuu xiiro khatar bay iska tahay inuu madaxa ku gooyo muuskaasi uu kugu xiirayo, birtaasi uu kugu xiirayo. walidalik siday u murugaysnaayeen waxay ku dhawaadeen buu leeyahy inay isdilaan qaabkay isugu xiirayeen. nabigu calayhi salaatu wasalaam maalintan wuxuu gowracay baa la yidhahdaa uu qalay awr weyn oo uu lahaa shaydaankii abijahal la odhan jiray oo xoolihii khaniimadii badar ay muslimiintu u heleen ayuu maalinta nebigu calayhi salaatu wasalaam qalay isagoo kaga sii cadhaysiinaya qoladaasi. hadyigii xudaybiyana filxil ayaa lagu qalay, inkastoo in yaroo ka midi ay xaramka dhankiisa gaadhay. saas bay muslimiintii ku taxalluleen ama ay ku dhammaysteen cimradoodii oo ay ku qaateen xukmigii qofkii la xasriyey ama se laga joojiyey. haddii sidan ay ku dhammaystireenna waxa weeyaan inaan qadaaba lagu lahayn. waxaa bilaabmay markaa in ciidanku dib uu soo guuro oo magaalada madiina dib ugu soo noqdo. kadib baa la yidhahdaa markii ay joogeen sida uu yani masaa'ilkan degitaanka iyo joogistiiyo waxaa had iyo goor waa iska tasaamuxaan, waaqidii iyo waxbay kasoo qaadaan. wuxuu leeyahay waxay deganayaan 20 maalmood. rixladooda ama socodkooduna iyaaban wa dhihaaban waxay qaadatay baa la yidhahaa ilaa iyo bil iyo bad. labaduba waa riwaayada sanad saasiya wadanin. ilaa bil iyo badh ayay joogeen. ghazwa xudaybiya intii lagu jiray haddaynu dhacdooyin yaryar oo dhacdhacay soo tilmaamno, waa waktigii ama ghazwada gudaheedu nebigu ugu ogolaaday ninkii kacb ibnu cujra la odhan jiray oo ixraamka u xidhnaa oo cimrada raggii soo xidhay ahaa ayaa madaxa dhibi ka gashay, jir iyo waxbaa ka galay madaxa. dabeetana wuu xanuunay. iyadoo aan la gaadhin waktigii xalqiga la samayn lahaa ayaa ninkan waxaa loo ogolaaday inuu madaxiisa isagu iska xiirto, laakiin fidya inuu bixiyo. faman kana minkum mariidan aw bihi aadan min ra'si fafidyatun min siyaamin aw sadaqatin aw nusuk. waa nusuustaasi ninkay sababtiisa kusoo degtay baa la yidhahdaa. waa la leeyahy subxaana wa tacaala ninka idinka mid ee xanuunsada ama madaxa dhibi ka soo gaadho fidya ha sameeyo oo neef adhiga ha qalo ama 3 casho ha soomo ama masaakiintii ha quudiyo 60kii miskiin iyo wixii la mid ahaa. intii lagu jiray ghazwadatan ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam u ogolaaday saxaabadu inay guryahooda ku tukadaan ama meelahooda marka roobku soo dhacayo. oo xadiidka ibnu maaja isna sanadkiisu saxiixayay ayaa saatan tilmaamaya. waxa kale oo nebigu calayhi salaatu wasalaam ghazwadan intii lagu jiray waxyaabaha la dareemi karo waxaa ka mid ah heshiis buu nebigu la galay calayhi salaatu wasalaam nimankaas nabadeed. culamada bar baa yidhahda ma laga dareemi karaa muddadan uu nebigu la galay inay aqsal mudda heshiisa la xidho inay noqon karto. waxyaabuhu waktigan xudaybiye lagu jiray dhacay waxaa ka mid ah ma habeenkii waktigii roobku u da-ay buu nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi dadka waxaa ka mid a xalay mid gaaloobay, waxaa ka mid ah mid ilaahay rumeeyey. ilaahay baa yidhaha waxaa ka mid a dadka mid iga gaaloobay iyo mid i rumeeyeyba.
wuxuu nabigu sheegay calayhi salaatu wasalaam inuu ilaahay leeyahy waxaa alle ka gaaloobay ka yidhaahdo mutirna binawi kada wa kada, xidig hebel iyo xidig hebel baa xalay roobka noogu daay, ka yidhaahdaa ilaahay buu ka gaaloobay buu nabigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam. xidigahana waa rumeeyey. ninka yidhaahda ilaahay naxariistiisii baanu helayna, ilaahay buu rumeeyey subxaana wa tacaala. yani waa waxa aada u fool xun nimcada allihii keenay subxaana wa tacaala cid aan ahayn in loo nisbeeyo. xataa aan la daaye yani bini aadamka caadiga ah, qof intaad wax siiso wanaagaad u gasho haddana cid kale loo nisbeeyo adiga lagu dafiraa, wax qurux badan maaha. intaad cid wax u samayso wanaag iyo sama u samayso in haddana inta adiga lagu dafiro cid kale la siiyo libta, waa waxaad u liita. ilaahay ba subxaana wa tacaala roobkiiyo naxariista keena, inta ilaahay inoo naxariisto in cid kale loo nisbeeyo oo la yidhahdo xidig hebel baa xalay roob ku daayey, xidig hebel buu ku daayey, waa dulmi. waxyaabaha laga faa'iidayo ghazwadatan waxaa ka mid ah tafaa'ulka inuu nabigu jeclaa calayhi salaatu wasalaam, oo markii suhayl ibnu camar ba u yimi sahula amrukum lahaa, arrinkiini baa laydin fudeediyey in wax la tafaa'ulo, laakiin baasaysiga shareecadu ma ogola inaad wax iska baasaysato. waxyaabaha aynu ka faa'iidnay ghazwadan ay soo aragnay waxaa ka mid ah aasaartii nabiga calayhi salaatu wasalaam in lagu tabaruki karo, sidii waysadiisii iyo biyihii ka daadanaya dadku ismarmarinayaan ama laisku sii masixi jiray. laakiin aathaar saalixiin wax lea lagu tabaruko garan mayno ama ma xogana. waxyaabaha ghazwadan intii lagu jiray dhacay waxaa ka mid a markii laga soo noqday ghazwada sane dhexda lasii socday ayay muslimiintu salaadii subax ka seexdeen. waxaa la yidhahdaa ciidankaa meel degay, dabeetana bilaal baa noqday ayaa loo diray ilaalada inuu ciidanka ilaaliyo, dee salaadii wuxuu kiciyo. bilaal ayaa markaa hurdadii ka tiro badatay baa la yidhi, isna uu gamaan. indhaha wuxun bay dadku kala qaadeen iyadoo cadeedu xaggaa sare marayso, indhaha ciidankii oo dham indhaha kala qaaday. nabigu calayhi salaatu wasalaam waa halkuu ugu jiday imaka faman naama, ninkii salaadiisa ka seexda ama hurda ay ka kaxayso inuu markuu indhaha kala qaado inuu tukado. yani haddaabay iyadoo tan inay caado lagaga dhigtaa maaha. habeen kasta intaad ka soo jeeda inaad tidhahdo salaadii subax hortay ku dhaaftay, taasi si maaha iyadu. laakiin haddaabay dhacdo subax ama habeen ama wuxuuna inuu shaydaan haalibkaa noqdo oo qofka ay hurdadu laba tagto ilaa iyo tacdeedi ka soo baxayso, waxaa korkiisa saaran mar allaaliya markuu toosay indhaa kala qaado inuu tukado. soomaalida inta badan dhaqan xun bay leedaha duhurkuu la sugaa, duhur iyo waxalla lama sugo, markaad soo toostay ayaa la weysaystaa, markaas baa la tukadaa. intii dhexda lasii socday ee lasoo noqdayna mucjizaad kale ayaa nabiga ka muuqday calayhi salaatu wasalaam. waxaa mucjizaadkan ka muuqday ka mid ahaa taksiiru aطacaami walmaa, cunadii iyo biyihii oo uu nabigu calayhi salaatu wasalaam barakadiisa ilaahay ku badiyey. waa kii lahaa salamata bnu lakwax saxaabigii la odhan jiray, nabigaanu la baxnay buu yihi ghazawaadkayga ka mid a, dabeetana waxaana haleelay buu leeyahay dhib aada u tiro badan leh, ilaa ayaanu ku talagalnay inaanu qallo xoolihii aanu fuushanayn. markaasuu nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuuna faray buu yidhi inaanu soo ururino waar balweelka waxa raashin idinku jira keena buu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam. nin walaba wixii raashin uun ku hadhay qandiyadiin iyo weelashii rayseteen soo ururiya. intii baa la soo ururiyey, dabeetana waxaa loo goglay bisaad yaroo harag yar saan ayaa loo goglay. saantii markii loo goglayna waxaa la yidhi dadka wixii qof walba raashin waxaad haysatay halkaa ku ururi. raashinkii baa meesha lagu ururiyey. waan eegay buu yidhi inaan eego waxaad u yar ka rabdat alcanzi buu ku tilmaamay, yani kooman yar yaroo aan naf lahayn ayuu noqday wixii ciidanka dhan laga helay. ciidan dhan oo 1400 oo nina ayaa wax yar oo intaan leeg waxar yar wax leeg buu leeyahay oo kala laga soo helay wax raashina markii la soo ururiyey. nabigu calayhi salaatu wasalaam intaas yar ee laga soo helay buu ugu duceeyey oo ilaahay u weydiiyey inuu u barakeeyo. dabeetana cuna baa la yidhi, tii bay cuneen. waan wadnay buu saxaabigu leeyahay ilaa 1400 nin bay fuleen. raashinkii yaraa intii yarayd ee meesha lagu soo guray ilaa 1400 nin bay ka dhargeen. dabeetana waxaa la yidhi weelasha ku gurta, baaqigiina weelashaanu kusoo guranay buu leeyahay. markaasuu nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam fahal min wuduu, war wax waysaa ma haysaan? nin baa waysadiisii yarayd keeno oo waxaa la yidhi
intaa yaree ninkan wayse yaro haraga taa yar intaa ugu jirta mooyaane wax kale lama hayo. wuxuu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam meel qadax weyn weel bal ku shuba weelkan, dabeetana waa iyana ugu duceey, kiina waa ugu duceeyey. wuxuu leeyahay saxaabigu biyihii sacbadan xoog u dardarsanayno waanu wadnay ilaa iyo 1400 ninba halkii wayse yaray laga wada weysaysto laga cabo laga dhamaystirtay. hal waysoo yar ayuunbaa alla barakeeyey aan biyaheeduba goyn. xagga horena waataynu kusoo marray Xudaybiya markii la tegayna ceelashii ama meeshii biyihii intay ka go-een inuu nabigu calayhi salaatu wasalaam ceel dhinac intuu istaagay ugu weysaysto biyo yar ugu shubay ama qaar leeb ugu ganay. calaa kulli xaal biyo in marka horena alla uu barakeeyo ay biyo ka heleen. dhexda markii lasii socdo ayaa waxaa soo degay suurad qur'aana. dhexda markii lasii socdo ayaa waxaa soo degay suurad qur'aana. waxaa soo degtay suuradda la ydhaha inaa fataxnaa laka fatxan mubiina liyakfira laka allahu ma taqadama min dambika wama taahar wayutima nicmatahu calayk. suuraddaasi inaa fatax la ydhaahdo ayaa nabiga calayhi salaatu wasalaam kusoo degtay. aad baanu ugu farxay nabigu calayhi salaatu wasalaam suuradatan markay kusoo degtay. waana kii nabigu laha calayhi salaatu wasalaam unzilat calaya layla suura lahiya axabu ilaya mima alacat calayhi shams. xalayto waxay igu soo degay buu nabigu leeyahay suurad waagu wuxuu u bariyay adduun oo dhan ba aan ka jecelahay. waaadka qaar waa kuwa tilmaamayaa cumar oo le wixii aan sameeyey inagoo ka baqayan qur-aan igu soo degaan ciidanka iska sii hor socday, dabeetana waa laga soo daba diro waxa la yidhi ciidanka caliga cumar gaarsiiya warka kan in ilaahay qur-aan soo dejiyaan oo isla buu leeyahay qur-aanku talo maaduu kugu soo degay. ayaa waxaa soo degtay buu yihi inaa fataxu alla subxaana watacaala ugu bishaaraynayo. waa ka anas ibnu malik uu ku tilmaamayo isaguna xadiidka bukhaariga ah ee uu leeyahay markay soo degtay inaa fataxnaa laka fatxan mubiina qaala alxudaybiya bay ahayd buu yihi fatxu. markaasay asxaabta waxay yidhahdeen buu yihi hanii'an mari'a famaa lana, ilaahay rasuulkiisiiyo anana maxaanu leenahay. horta adiga hanii'an mari'a yani bogaadin iyo dhuun marba mid laba alla ku siiyey subxaana watacaala. ilahay wuxuu leey inaa fataxnaa laka fatxan mubiina, furasho fiican baanu kuu furay baa ilahay nebiga ku yidhi. markaa bushaarada adiga ilaahay alla kuu siiye annana maxaanu leenahay bay weydiiyeen saxaabadu nabiga calayhi salaatu wasalaam. ilaahay baa markaa wuxuu soo dejiyey buu leeyahay saxaabigaasi liyudkhila almu'miniina waalmu'minaati jannaatin tajri min taxtiha alanhaar. aayaadkaasi iyaduna isla suuratu lfatxiga ka tirsan ayaa alla soo dejiyey ee lagu tilmaamayo mu'miniinta iyo mu'minaadkiina iyana inay jannooyinkaasi leeyihin. dadku nabiga calayhi salaatu wasalaam bay kusoo urureen isagoo fuushan neefkiisii kuraaci lkhamiim meesha la yidhaahdo. dabeetana wuxuu ku akriyey nabigu calayhi salaatu wasalaam aayaadka kan inaa fataxnaa laka fatxan mubiina. nin baa wuxuu ku yidhi ilaahay rasuulkiisiiyo afatxun huwa, sulxudaybina waa dee wixii ay ka cadhaysnaayna ka yimaadeen. afatxun huwa bay yidhahdeen markaasaa furasho ah, fatxi iyo guula la keenay matambaa bay ku yidhaahdeen aynu hadda ka nimid. qaala nacam waladii nafsii biyadihi inahu lafatxun buu nabigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam. xadiiskii abi daawuud saxiixa. ilaaha naftaydu gacantiisa ku jirtaa ku dhaartee haa oo kaasaa fatxi iyo guula buu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam. ka aynu ka nimi ayaa guul ah. markaasaa waxaa alle ka kiciyey dadka muslimiinta ah ka'aabadii iyo murugadii iyo tiiraanyadii iyo cadhadii ka saarayd heshiiskii oo dhan. ilaahay baa u sheegay inuu fatxi yahay oo saa khayrku ku jiray, dabeetana siibay ku raaceen. waxaa kaloo nusuustanay tilmaamaysaa qofka mu'minka waxa looga baahanya inay tahay haddii ilaah iyo rasuulka ay wax xukumaan, adigu asbaabta iyo xikmadda ka dambaysa haddaad fahamtiiyo haddaanad fahminba inaad u qaadato inay tahay sida khayr ku jira inay sidaas tahay, sida alla yidhi inay tahay maxay sida khayr ku jiro. waa laga yaabaa inaad hore u yaro fahmi weydo sababta waxaan loo jiiday, waa suurtagal. laakiin waa inaad rumaysataa ilaaha caliima inuu xukumkan soo dejiyey oo xakiima oo adiga kaa xogagaalsan oo kaa aqoon badan
oo waxa jira og oo wixii soo jiray oga oo waxa dhici doona og inuu soo dejiyay subxaanahu wa tacaala. idan markasta waa inaad garataa adigu inaad tahay kamaanka yar laan hore wax u fahmaynin ilaahayna inuu yahay subxaanahu wa tacaala ka saxa. walidaalika arintay saxaabadu ka warwarsanaayeen ayaa ilaahay wuxuu ku tilmaamaya inay tahay fatxan mubiina, guul cad iyo furasho weyn inay tahay baa alle subxaanahu wa tacaala uu ku tilmaamaya. inay guul tahayna waxyaabaa tilmaamaya waxaa ka mid ah kow waxay noqotay horta in dawladdii islaamiga loola dhaqmo Quraysh sidii dawlad la mid ah heshiis ay la geli karto jiritaan laba jiritaan oo isleeg inay noqdaan. shalayna waxay lahaayeen inamada yaraan soo qaban oo gunta ka soo jaro. laba waxaa timi in arjaa ilcaalam ama wadanadii carbeed oo dhan inay gaadhay warkan ah heshiis inay wada galeen Quraysh iyo nabigu calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadii la socotay. taasi markiiba waxay soo dejisay dad badan oo iska jeclay inay muslimka xilfi wadaag la yeeshaan, laakiin Quraysh ka baqayay inay toosba u galaan. oo Khuzaaca masalan oo berigii horena xilfi wadaag ay Cabdulmutalib ibn Hashim wada ahaan jireen inay markiiba la galaan heshiis safka nabiga calayhi salaatu wasalaam inay heshiiska ka soo galaan. inkastoo marka horeba Khuzaaciyiintu ay ahaayeen niman waxa la yidhahdaa gaalkooda iyo muslimkooduba xagga nabiga calayhi salaatu wasalaam u janjeera, laakiin imika ma way cadaysteen tacaatufka iyo heshiiska ay la yeelan lahaayeen nabiga calayhi salaatu wasalaam. waxa kaloo heshiiskani uu taray inuu nabigu cadawiyadiisii qaarna heshiis la galo qaarna uu u farabaxo markaasi oo u banaanaado. masalan yahuudii Khaybar deganayd iyo yahuudintii ka hadhe laga fadhiyi kari waayey inuu nabigu calayhi salaatu wasalaam u gacan banaanaado oo uu markaasi jaanis u helo isagoo Qurayshna aan markaan ka cabsanayn heshiis uu kula jiro nabigu calayhi salaatu wasalaam. waxa kaloo aad garan kartaa inuu ahaa waqti islaamku xoog u faafay. walidalik ayuu imaamu Zuhri fi lislaam fatxun qabla kana acdamu minhu, intii islaam la ahaaba buu yidhi hore guul ka weyn guushatan horteedba lama gaadhin buu yidhi imaamu Zuhri. inamaa kana alqitaalu xaytu iltaqa annaas buu yidhi. Zuhri wuxuu leeyahay awal colaadun bay ahayd meeshii dadku iskaga soo horbaxaanba dagaalun baa taagnaa, dagaalun baanu arrinku ahaa. dee cid haddaad dagaalamaysaana war kaloo laiska dhegaystaa ma jiro, isu waran iyo maxaad wadaa iyo war kale ma jira. dee laba safo cole mar hadduu yahay waa dagaalun waxa ka dhexeeya. marka waagii hore waxay ahayd buu leeyahay dadku meeshu iskaga soo horbaxaba dagaalun baa loo taagnaa. falama kanat alhudna wawudicat alxarb وآمن الناس بعضهم بعضا والتقوا فتفاوضوا في الحديث والمنازعة فلم يكلم أحد بالإسلام يعقل إلا دخل فيه. وحلية هي إمام الزهري مركي هشيسك الله قليبوا لي دقالكي وقبوبي دادكو نبتقليا وهلي قال يا مسلم بالله كلمي gaalada iyo muslimiintii ay is arkeen dadkii is dhex galay la wada sheekaystay la heshiis baa jiree ma jira buu yidhi nin maskaxda oo islaamka lagala hadlay ilaa uu soo gala. yani markay nabad noqotay dadkii is dhex galay la isu warrami karayay ma dhicin buu leeyahay nin caqli leh oo islaam loo sharxay ilaa diinta uu soo galay. labadan sanadood baa buu yidhi يعني heshiiskani wuxuu buu sii socday muddo 2 sanadood aan dhamayn. 2 sano wax dhiman waliba baa la yiraahdaa. 2 sano kadib fatxu Makka ba dhici doona. muddada yar aan 2 sano dhamayn buu yiri waxa soo islaamay intii hore uu islaamtay in leeg buu leeyahay. intii hore uu islaamtay in leeg. ولذلك ما ابن هشام isagoo raba ra'yiga inuu xoojiyo ayuu sheekh siirada qora ibn Hisham la yiraahdaa wuxuu leeyahay والدليل على قول الزهري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى الحديبية في 1400 ثم خرج في عام الفتح بعد ذلك بسنتين في 10,000. توحى الدليل بولي إن ضد الدين تصوغ عليه مركي نقطان نبضة إن إسلام كونه وحبدا فايدي وحا عطينا يبويري صلح الحديبية مركو نبي قال يبويري عيدا كونه يافر بغلا بوته. 2 sano kadib markuu Maka weerarka ku soo qaadayna
10,000 oo nin buu watay buu leeyahay. yani dadka intan leegi waxay diinta soo galeen buu leeyahay maxay waqtiga nabadda la ahaa ee islaamka la faafinayay dadka diinta loo sheegayay ay waxaasoo dadii diinta soo galeen buu ku tilmaamaya. idan waxa uu tilmaamayaa inuu fatxi ahaa, inay guul soo hoyatay ahayd heshiiskan uu nabigu galay calayhi salaatu wasalaam. oo waayo wuxuu fudaydiyey in quraysh nabad laga helo oo islaamku markaasi la faafin karo oo dacwo dadka muslimiinta ay u dhaqaaqaan. waana qadiyad runtii muujinaysa dadkii hore muslimiinta ama gaar ahaan saxaabadii jaanis yan markay helaan ee dacwadeed siday uga faa'iideynayaan ay u fadhiisanaynin. waa qadiyad aad ka arki karta muddo 2 sannadood intay dad diin soo geliyeen. waa 2 sano qura jaanis la siiyey. awal iyagun baa la weerarayo nafta la soo keenay 2 sannadood qura bay heleen jaaniska ah in nabadi dhici karto. dabeetana 2 sannadood ay quraysh jaaniska ka heleen waxay gaarsiiyeenba dadkiiba islaamnimadii. heshiiskaa markii uu nabigu galay calayhi salaatu wasalaam ee uu magaaladii madiine ahayd yimi ayaa madiine markiiba waxaa soo galay nin muslim oo cusub oo soo baxsaday. abujandal isaga waa la celiyey. nin abubasiir la yidhaahdo oo rooraya oo soo baxsaday oo quraysh ka soo cararay ayaa yimi. markii uu yimi ninka kani ayuu nabigu calayhi salaatu wasalaam waxaa ka daba yimi ninkan. markii uu yimi 2 nin oo ka socda gaaladii oo raba heshiiskii da in la fuliyo ninkan la soo celiyo. markii ay nebiga u yimaadeenna calayhi salaatu wasalaam nebigu wuu celiyey ila waa heshiis uu galay. saasi daraaddeed abubasiir nebigu wuu celiyey calayhi salaatu wasalaam. abubasiir 2 nin baa kaxeeyey. dhexda markay sii wadeen ayuu 2 nin adigu khiyaameeyey. culamada taarikhda waxay tilmaameen inuu yidhi warniyow intuu isdhiibay oo dee nin raacaya iska dhigo oo si fiican ula socdo ayuu meel dhex markii la marayo buu midku yidhi warniyow seeftaadu qurux badana waa seef aad u fiican oo wanaagsan baan u malaynaya. kii kale la socdaa soo saaro oo yidhi ha wallahi waa bahal seef oo aad u roon balkeenun buu yidhi uu ka yaro qaaduno 2dii kii koowaad madaxuu ka jaray. kii labaad baa carro kii labaadna wuu soo eriyaday. kii dambe isagoo midna dilay midna eriyayuu madiine soo geliyey. nabiga calayhi salaatu wasalaam buu dib ugu soo noqdeen haddana ninkii abubasiir 2 nin lagu daray oo midna dilay midna eriyanaya. markuu arkay nebigu kan baqaya soo ordaya u soo galay ayaa kii war akhriyay uu leeyahay anna waa lay dilaya ninkii kalena waa la soo dilo. waa kan abubasiir markuu nebigu arkay calayhi salaatu wasalaam nebiga loo yimi abubasiir wuxuu ku yidhi nebiga qad wallahi awfa allahu dhimmatak qad raddadtanii ilayhim uma najaanii allahu minhum. ilaahay rasuulkiisiiyo buu yidhi allah ku dhaartee adigu ballankaagii waad fulisay waanad i celisay ee ilaahay baa iga soo badbaadiyey. yani nimanka ayaa dib laygu celin oo kala war oo eg ayuu tilmaamay. adigu cahdigii iyo ballankii waad fulisay waad iga celiyey ee anigaa ilaahay iga soo badbaadiyey. nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi baa la yidhi waylun umma mis'alu xarbin low kaana lahu axad. hooyadaa hoogtay kani waa mid dagaal oogaya talow muu haysto cid taageerta buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam. markuu weedhaa maqlay ayuu abubasiir wuxuu fahmay inaanu madiine deganaan karin. dabeetana wuu iska baxay. wuxuu gartay in la celinayo madiinana uu iskaga tegey. wuxuu qabtay sifi lbaxr saaxil ilbaxr xeebta badda dhinaceeda ayuu iska tegey. abubasiir halkaasuu iska degey. dabeetana halkaasu wuxuu ka noqday isagu keligii nidaam cusub ka samaystay inuu iyo xoolaheeda iyo wixii halkaa maraya uu halkaa ka ugaadhsado oo madiine iyo dawladda islaamigaana uu iskaga tago. halkiisi isagoo iska jooga markii ay ogaadeen muslimiintii mustadcafiinta ee maka iyo meelaha joogtayna dee hadday tagaan madiine in la celinayo kii baxsada xagga nebiga ma qabtee wuxuu u tagaa abubasiir. abujandal baa isna soo baxsaday. dabeetana abubasiir buu ugu tegey. abubasiir iyo abujandal halkii intay fadhiisteen bay ciidan samaysteen. koox bay heleen. markaa kooxdii ay heleenna dagaal bay ku qaadeen nimankii quraysheed aan waxba usii daynaynin. waxaa la arkaa bay idhahdaan qad yasaci lfard ma laa yasaci ljamaca bay idhahdaan.
waxaa suurtagala bay idhahdaan hal qof oo muslimiinta ka mid isagoon muslimka kala matelin wax badana uu samayn karo ayaanay jamaacadu iyadoo isku duuban samayn karaynin yani ka dawlad ahaan ama dawladda muslimka aanay samayn karin laakiin qof aan dawladdaba ka tirsanayn isagoo ka baxsan xuduudeeda oo keliya waxa laga yaabaa wax badan inuu bedeli karo isagoo aan ka tirsanayn dawladaha aanay xiraajinaynin abu basiir iyo jamaacadiisa nebigu calayhi salaatu wasalaam dee mas-uul kama noqonin waxaa kaga jirta hadduu nebigu amro awaamirta nebiga inay aqbali lahaayeen laakiin dee muxuu ugu celin gaalada heshiisku waxa wixii kuu yimaada inaad noo soo celiso markay u yimaadeenna wuu celiyey haddana umay imanin nebiga calayhi salaatu wasalaam ee waxay degeen xeebtaasi xeebtooda ay iska degan yihiin baanay ka ugaadhsadaan oo nimankii quraysheed iyo wixii oo dhan ay meeshaasay nafta isugu keeneen taasi waxay ku bixisay markaa qurayshi intay nebiga u timaada inay yidhaahdaan heshiiskii aynu wada gallay qodobkii ahaa wixii naga yimaada noo soo celi waanu ka noqonayo kooxdaa nooga yeedh abubasiir iyo abujandal iyo kooxdaasi nooga yeedh oo madiine ha yimaadaan ciddii dambe ee muslim ee naga soo baxsatana ha noo soo celinina qodobkii saxaabadu markii hore ay ka xanaaqsanaayeen waa kii nebigu markii horeba lahaa ilaahay baa faraj iyo makhraj u samayn doona iska sabir abujandal waa kii ku tilmaamayey ilaahay waa u sameeyey subxaana wa tacaala oo markay sidoo tani dhacday labada nin ee dawladda ka baxsan iyo kooxda ciidan ay haystaan ay meeshii wadooyinkii oo dhan jareen qurayshi waxay door biday inay ka noqoto qodobkii ahaa ee markii hore ku dhegsanayda ahaa wax allaaliya wixii muslime naga yimaadana dib noogu soo celinayso kiina nebigu calayhi salaatu wasalaam uu ka aqbalay horena iyaga dumarka wuu diiday nebigu inuu celiyo dumarka waxaa la yidhaha umu kalthum bintu cuqba ibnu abi mucayd oo soo hijrootay baa timi iyada muu celinin nebigu calayhi salaatu wasalaam waayo marka horeba wixii ragaba oo ku qoraa naska wixii rag ee naga yimaada ilaahayna dee qur-aan buu ka soo dejiyey uu tilmaamay ida jaakum lmu'minaat muhaajiraatin famtaxinuuhuna allahu aclamu biimaanihina alla uu sheegayo walahum yaxiluuna lahuna ilaahay uu tilmaamayo inaanay haddii dumarka muslimiinta ahi ay soo hijroodaan imtixaama baa ilahay yidhi subxaana wa tacaala oo iyaga waxaa imtixaantaan inay dee diin usoo hijrootay iyo inay dana kale iska lahay hadday markaa diin u yimaadeen ilaahay baa iimaanka qalbiga ku jira oge markaa baadbaadhaan haddaa rumaysataan dadkan inay diin kusoo hijroodeen daraaddood ha u celinina baa la yidhi waayo markii hore sharci ma jirin mamnuucaya in ninka muslimka ah uu gabadh gaala guursado ama gabadha muslimadda ah ay nin gaala guursato markii hore sharcigaasi ma soo degeen laakiin aayaadkani markay soo degeen ilaahay wuxuu baneeyey in caqdigii hore in la buriyo oo ah walaa tumsikuu bicisami alkawaafir ba ilahay laha gaalada ninka mu'minkaana uma banaana haweeney gaalada inuu iska haysto haweeneydii gaalada ahayd inuu nin mu'mini qabo uma banaana walidalik ba alle wuxuu leeyay subxaana wa tacaala wixii ka soo baxa ee yimaada ha u celinina maxaase la samaynaya wixii meher ay ka bixiyeen unbaa la siinaya wixii meher ay kala timi ayuunbaa loo celinaya waxaana muuqataba naska bukhaari siduu sheegayo inaanay marka horeba qodobada ku jirin cala annahu laa yaatiika mina rajul ayuu awalba ahaa gabadhi kuma jirin waktiga kan lagu jiray hudnada heshiiska gaar ahaan waxaynu odhan karnaa malaha markii la gaadhay in qodobkanina uu buro inaan quraysh lagu soo celinin qofka muslimka ee ka soo baxsada inaan dib loogu celinin qodobkaana markii la baabiiyey quraysh waxaa ka soo islaamay rag waaweyn oo ka yimi ragga soo islaamay waxaa ka mid ah ninkii la odhan jiray khaalid ibn ulwalid ninkii fardoolayda oo quraysh hogaamin jiray oo taariikhda dambe islaamiga ana nimankii ugu cadcaddaa ahaa ahana ilaa maanta taariikhdan aynu joogno nima yidhaahdaan tacticskiisii dagaal kuliyaat alxarbiga caalamka maanta weli lagu daraaseeyo iyo qaababku dagaalada u geli jiray ahaa qof runtii ilaahay subxaana wa tacaala uu fatxi u furay baabka dagaal nin raga ku ahaa ninkaas baa soo islaamay waxaa kaloo raggi soo islaamay ka mid ahaa camar ibnu caas ninkii la odhan jiray
camar ibnu caas waa saxaabi, waa labadii nin ee muslimiintii baxsatay ee u hijrootay xabashida, labadii nin ee laga daba diray waa ninkii hogaaminayay qurayshu hadlayey. camar ibnu caas waa daahiyat alcarab ninkii la odhan jiray, waa nin aad u caqli badan buu isaguna ahaa. isaguna wuu soo islaamay. waxaa la yidhaahdaa wuu yimi markuu soo islaamiyo nebigu u yimi calayhi salaatu wasalaam, markaasuu wuxuu yidhi ilaahay rasuulkiisiiyo waa islaam, laakiin markuu is yidhi nebiga gacan qaad bu wuxuu yidhi ashtaritu linafsi, intuu gacanta dib ula noqday, shartaan rabaa inaan dhigto sheega buu ku yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam. ninkani dee wuxuu dareemayaa muddo 20 sannadood haddaynu islaamka la soo dagaalamayay, imika waa sanadkii 7aad ee hijriyada meelahaasay maraysa, 13 sane maka la joogay iyo 7dan marka laysku daro ama 60 waa 20 wuxuu ka cabsaday markaas intuu islaamay wixii dembiye hore in ilaahay u qabto. deetana wuxuu yidhi waan islaamaya, saxiix muslim xadiidkiyaa laysuu sheegayay, waxaan shardi ka dhiganaya in dembigayga hore la dhaafo, inaan laga qabanin wixii daa soo sameeyey 20 sano aan islaamka ka soo horjeeday oo aan muslimiintaasi dhibayay, inaan wixii hore laga qabanin, saas baan doonaya. wuxuu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam ma taclam yaanad ogeyn alislaam yajubu maa qablaha, buu nabigu ku yidhi islaamku isagaa tirtira wixii ka horreeyey. haddii aad intaad islaamto islaamnimadaadu fiicnaato, berigaad gaalkahayd waxaad muslim dishay ama waxaad muslimiin la dhaawaaday ama la dagaalatay ama kasoo horjeeday, ilaahay kuu qaban maaye, markan baa toobadda laga aqbalaya, hadday kuu bilaabmaysa, kitaabkaagu hadda kuu bilaabmayaa buu nabigu yidhi. wixii hore o dhami ilaahay waa kaa cafinaya, iska dhaaf. waktiga kan markaa sulxiga lagu jiray runtii waxaa dhacay in islaamkuna xoog u qabcay, muslimiintu ay aada u xoogaysteen, dad badan oo ahlu caqliya ama rag badan oo islaam oo waaweyn ay diinta soo galeen. sulxu xudaybiya iyo heshiiskiisaasi markaasi wuxuu socday muddo 17 bilood ama 18 bilood meelahaasi, 2 sano oo wax dhiman bay yidhaahdaan. waktiga kanna waa waktigii uu nebigu bilaabay calayhi salaatu wasalaam inuu la xidhiidho caalamka kale. yani awal quraysh iyo yahuudiya intaan halkan joogtaa la ishayey, inuu nebigu calayhi salaatu wasalaam risaalo iyo waraaqa diro oo u diro boqorada iyo dawladaha dunida. insha allah bacda sulxi xudaybiya ama heshiiska xudaybiya intii la galay kadib, waktigii nabadda la ahaa, nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu tijaabiyey dhowr shayba inuu sameeyo. kow, inuu dunidoo dhan la xidhiidho, oo awal dagaal unbuu quraysh inta badan kula jiray caalamka kale agagaarkiisa o dhan inuu xidhiidh la sameeyo. sidaa awgeed ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam waraaqa qoray oo u kala qoray dadyowii hareeraha ka xigay oo dhan. waana beenaan waxba ka jirin qadiyadan mustashriqiintu ay yidhahdaan markii horena carabun buu la hadlayay, markuu arkay inuu yaro xoogaysto qolada kale la hadlay. waayo qur-aankii maka kusoo degayba intuu nebiga laga xoog badnaa, waa ka ilaahay le wamaa arsalnaaka ilaa raxmatan lilcaalamiin, waxaanu kuu soo dirnoon caalamka oo dhan inaad naxariisu noqoto, isagoo maka lagu haysto aanu cidnaba haysanin. sulxu xudaybiya waxyaabuu keenay markaa waxaa ka mid ah dhowr shay inuu nebigu isla helo. kow, acdaada islaamiga ay 3 bay ahaayeen ee markaa ku xeeray, waa quraysh oo xoogga ugu weyn matelaysa, yahuud iyo khatafaan nimanka la yidhaahdo reer miyiga iyo waxaan u badnaa. quraysh markuu heshiis la galay nebigu calayhi salaatu wasalaam, waxa muuqata waxa ku soo hadhay un inay yihiin khatafaan iyo nimanka loo yaqaano yahuud iyo qaabkuula dhaqmi lahaa. quraysh maadaama ahayd xooggii ugu weynaa ee islaamka hortaagnaa, iyadana uu heshiisa la galay, wuxuu u weecday nebigu calayhi salaatu wasalaam ugu horeyn inuu xidhiidh la sameeyo caalamka kale. culamada taariikhda qortaa waxay sheegaan waraaqo aada u badan oo uu nebigu qoray calayhi salaatu wasalaam. waraaqahaasi ilaa 8 meelahaas bay qaarkood gaadhsiiyaan inuu boqortooyadii qaysar ama romanska boqortooyadii u talin jirtay inuu waraaq u diray, oo cabdillahi ibnu xudaafa asahmi saxaabigii la odhan jiray inuu dhiibay.
Ethiopia ama xabashida inuu waraaq soo diray oo Amr ibn Umayya Damri uu soo dhiibay muqaski Masar ki ka tali jiray Iskandariya inuu waraaq qoray oo Hatib ibn Abi Balta'a uu dhiibay Salit ibn Amr al-Amiri inuu diray Yamama hawdankii loo jiray Yamama haystay inuu diray Umman boqortooyadii ka tali jirtay inuu waraaq qoray boqortooyadii Ghassaaniyiinta Dimashq ka tali jirtay inuu waraaq qoray waraaq tiro badan bay qoraan nimankaasi taariikhi yahanada ah markaynu eegno waraaqaha kan qawaacid al-muhaddithin waxa ku asaxay kow waxa saxiixa oo soo qoray Imam al-Bukhari fi sahihi warqadii loo diray Qaysar Rum ama Romanska waraaqdii loo diray waxa kaloo Imam al-Bukhari ishaaray in qoladan kale gaar ahaan Bershiya ama Iran ay waraaq loo qoray laakiin madmuunkii wixii ay warqadu ka koobnayd uu soo qorin Imam Muslim fi sahihi isna wuxuu ku tilmaamayaa in waraaq loo diray xabashida laakiin wixii ku qoraayay madmuunka aanu soo sheegin adu waraaqda ugu caansan ee markaasi gudaheeda waxa ku qoran uu Sahih al-Bukhari ku soo arooray waa waraaqda loo diray Qaysar Rum ama Hiraql waraaqdii loo diray iyada insha Allah bitafsiil baynu akhri doona say saxiixa ugu soo aroortay waraaqa kalena bal waxaynu ka tilmaami doonaa Imam al-Bukhari hadith dheer buu soo aroorinaya hadithkaasi wuxuu ku tilmaamayaa in nabigu alayhi salatu wasalaam Dihya ibn Khalifa al-Kalbi saxaabigii la oran jiray inuu waraaq u dhiibay waraaqda inay ku qorayd bismillaahir rahmaanir rahiim min Muhammadin abdillahi wa rasuulihi ila Hiraqla عظيم مصر أي إلى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى أسلم تسلم أسلم يؤتك الله أجرك مرتين فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون نبي عليه الصلاة والسلام وراقضا بقريبا الله يدعى وليبا وراقضا مكو وراقها قرية نمكا بغرطوين كو قرية وحالله شيء النبي عليه الصلاة والسلام بقرطو إنانا وراق أقبلين إلا يين ختمي شابضين ورثمو يعني وساعنا إلا دمو يعني إنان الله أقبلين دبتنا النبي عليه الصلاة والسلام سيدة حديثك بخاري والتلمام أيوه wuxuu samaystay khatm shaabad buu nabigu samaystay Muhammadun Rasuulullah shaabada oo saddex sadar ka kooban baa la yiraahdaa sadarka hoose Muhammad uu yahay rasuul ay ku dul qorantay Allah ay ku dul qorantay yani shaabad saddex sadar yar yar saddex xaraf ka kooban Muhammad Rasuul Allah ay ka kooban tahay buu nabigu sameeyay alayhi salatu wasalaam shaabadaasi oo fidda uu ka samaystay fiddadu waa qalin ama silver shaabadu ka samaystay dadana shaabadaas nabigu ugu dhufan jiray alayhi salatu wasalaam wixii waraaqo uu diray yani waxa dareemi kartaa ama arkaysa nabigu alayhi salatu wasalaam inaanu waxyaabaha mujtamacaadka curfiga iska wax faa'iideyn kara inaan waxba ka qabin hadii loo tilmaamo waxyaabahaasi inuu sidooda u qaadanayay sida shaabadan oo kale waraaqdu ninkan uu qoray waxa gudaheeda madmuunka ku qoraaw yahay ilaahay bisankiisu ku bilaabay nabiga alayhi salatu wasalaam dabeetana wuxuu sheegay Muhammad oo ilaahay adoonkiisii iyo rasuulkiisii ay ka timi markaad eegto dhanka nabiga alayhi salatu wasalaam alqabtan burburana dadku maanta isticmaalaan tirada badan leeyahay waxa kan muu qori jirin darajada tirada badan la sheegto nabiga alayhi salatu wasalaam wuxuu sheegtay ilaahay adoonkii iyo rasuulkii inuu yahay Muhammad Abdullah wa rasuuli ilaahay adoonkii Muhammad oo Allah adoonkiisiiya iyo rasuulkii Allah intaas uu qortay nabiga alayhi salatu wasalaam amma markuu sheegay ninka kale Romanska ama dawladda kale ka taliya
muu yasin nabigu calayhi salaatu wasalaam ama ma xaqirin ama ma wuxuu tilmaamay ilaa hiraqla cadiimi ruum hiraqla oo kii weynaaye reer rooma ama odaygii rooma walidalik baa culamadu waxay yidhahdaan waxa habboon dadka alqaabtooda ama manziladooda ama waxay joogaan in aan la yasinin odayga jiif caaqilka inaad jiif caaqilnimadiisa ogolaatid ka kalena qof walba wixiisa inaad u ogolaatid walidalik buu nabigu calayhi salaatu wasalaam isagoo ixtiraamaya ayuu wuxuu tilmaamay ilaa hiraq cadiimi ruum hiraqalo ruum odaygeedii duqeediiya wuxuu nabigu calayhi salaatu wasalaam ugu qoray markaasi salaamun calaa man ittabaca alhudaa yani muu odhan salaamu calaykum waayo ninkani gaal buu ahaa dabeeta wuxuu ugu qoray nabadgelyo korkiisa ha haato ciddii hanuunka alle raacda nabadgelyo adiga korkaaga ha haato lama odhan ama allah ku dhowray waxaa la yidhi ciddii ilaahay hanuunkii raacda nabadgelyo korkiisa ha ahaato saas buu nabigu ugu qoray calayhi salaatu wasalaam wuxuu kaloo ugu qoray war cad oo aan labaclabac lahayn oo ah islaam waad nabadgelaysaay akhriya walaalayaal darsigaani halkaas ayuu ku eg yahay allah tabaaraka wa tacaala waxaan ka baryaynaa inuu nagu anfaco assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh